kulan wacan daawaday waxaad ku soo dhawaataa janaalkeena Lewaya Films oo aad kaga barateen inaad ka daawataan warbixinadii la xiriira aktaryaasha ugu caansan Hindiya iyo kuwooda haatan u halgamay inay noqdaan aktara magac ku leh Bollywoodka. haddaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ama janaalkeena Lewaya Films, fadlan subscribe noo dheh, comment ka baxso, like ta saar, sidoo kalena gambalaalka furo si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee halkaan aan soo dhigno. haddaba warbixintana maanta waxaan ku eegi doonaa jilaaga caanka ah ee dhawaan u geeriyooday cudurka kansarka ah oo uu la daalaa-dhacaya muddo 2 sano ah, waana Irfan Khan. waa jilaa muddo 20 sano ah ku jiray jarista aflaamta Hindiya iyo Mareykankaba, wuxuuna ka soo muuqday filmo caalami ah oo Bollywood iyo Hollywoodba ah. waxaan ku eegaynaa haddaba hadalladii ugu muhiimsanaa ee laga diiwaan geliyay jilaaga filimkiisa ugu dambeeya ahaa Angrezi Medium, kaasoo uu guuldareystay, waxaana u sabab ahayd cudurka COVID-19 oo ka dilaacay adduunka oo dhan. wuxuuna asagoo jirin filimkaasi wax ka jilay ama la daalaa-dhacay cudurkani. haddaba hadalladiisa ugu muhiimsanaa ee laga diiwaan geliyay aktarkani geeriyooday waxaa ka mid ahaa: waxay ku xirantahay shaqsigaa tahay iyo qofkaa u tahay ahaanteeda. waxa ay la ahayd haddii aan shay ku caajiso markaasi ma jiraan wax faraxsanaan ah oo jaliin ah. iskuma dayayo inaan abuuro sawir iyo inaan quudiyo sawirkaasi. waxaan rabaa inaan dareemo xur goortii aan dareemo inay dejinayo nooc hal sheeko ah. sidaa og tahayna si sahlan ayaan u gudagalaa. isla sidaas ayay ahayd inaan lagu dhiirigelin maalmihii bilowga mar aan lahaa asxaab aan iskala shaqeyno shirkadda aflaamta. waxaan u sheegi jiray sidaan rabo, waxayna igu naqdin jireen wax badan, waxayna oran jireen maya, waayo waxaa sameynaysaa doorkan, haddana doorkaas kale ayaa sameynaysaa, marka waan ku garan la-nahay cidda aad tahay. marka hel qaabkaada iyo dhis muuqaal, kuna dadaal inaad sii dhisto. laakiin waxaan xasuustaa markii aan dhiganayay iskuulka jiliinka caalamiga, waxaan aadi jirnay meelaha filmadina loogu dabaaldegayo. riyadeena waxay ahayd inaan ahaado qof la soo baxo duwanaansho, aan ku noolaado doorar kala duwan ee nolosheeda dhabta ah. waxaan sawiran jiray nafsadeeda kala duwan, haddaba hab ahaanteeda timaha oo kale, waqti qaarna inaan kusoo tooso hab kale. laakiin si walba ay ahaataba oon ku dhagay taasi maxaa yeelay marabeen inaan ku caajiso xirfadaasi, ayuu yiri aktarka Irfan Khan ee dhawaan u geeriyooday cudurka kansarka ee uu muddo 2 sano la daalaa-dhacaya kuna geeriyooday dalkiisa Hindiya. aktarkan ayaa inta uu geeriyoonina bil ka hor waxaa sidoo kale geeriyootay hooyadiisa. dhimashada aktarkan ayaa waxaa ka hadleen dadka ugu caansan dalka Hindiya, iyagoona ay sheegeen in ay ruuxani Irfan Khan ah ee si fudud ay ku waayeen, isagoona ahaa mid da-adiisa 53 sano jir, magac iyo saameynba ku lahaa aflaamta dalka Hindiya iyo kuwa Bollywoodkaba. haddaba warbixintan haddii aad ka heshay, fadlan share garee oo la wadaaga asxaabtaada. waana ku mahadsan tahay daawashada warbixintan.